doraad anoo halkan maraya waxa ku marmeeyay imiga waxa lu wareejin ma ku jirnaa ma jecla hadalka inaan ku noqdo laba qof baa marmeeyo waa dadka miidiyaha waxa la isku haystaa annagu yeeli mayna $700,000 oo deyna iyo haddaydan qaadanida kursiga maxaad ka soo doonteen weli waa arrintan la yaabanahay xil wareejinta noocana inagu teenniisi khayr leynu maanta ku gabagabaynaynaa taasina markay teenu dhamaatay soo afjarmaysaa waayo way murmayaano xaqiiqda maanta halkaa ka dhacda ayuu imanaysaa meesha horta waxa deyn la yidhaahdo total haba yaraatee ma jirto deymaha laga sheekaynayay $500,000 maanta ay naga soo afjaraan qolada xil wareejinta ka samaynaysa miidiyo waxaan leenahay $500,000 ma jirto dumarka bashaas isku dhaxlaynaya waxaas ma jira ma leenahay halkan waa ubuc waa caasimadii Soomaaliya gobolka Awdal waana caasimadii labaad Meyer Maxamed waxaan leeyahay horta qodobka ah iloobin waa isku xisaabaash waan xoreynay laakiin yaan faraaga laga bixin burcana way haniisay runtii intii dambe saan wararkeeda ka maqlayay way haniisay odayaal aan weligood xil wareejinta iman baa yimi kulay دومك xogeenkii wadani halkan u fadhiya Maxamed Cali isagana aad baan u salaamay tiimkii la soo shaqeeyay xisbi ma kale maanta Maxamedow waa xukuumad halkan maanta waxa loo yimi waxa weeyaan ummadii soo dooratay baa loo yimi hab xisbi way ka soo gudubtay hadduu kulmiye ahaa hadduu wadani ahaa hadduu u cid ahaa halkaas la iska dhigay qaranka loo shaqeynaya weligaaba xisbiga doonto ka soo bax halkaas umay baashu maraysaa maalmo dhaweed waxaan aad u arkayay qadooyin badan oo golahayaga hore weligii aanan cunin casuumado iyo qadooyin baa intaas ka socday waxaan qadadaasi niyo ma qorshayaal baa ka dambeeya mid baa ila kaftamo wuxuu war inamadu gunna male baa la yiri hadaa ma waxad uga dhigay ma waxad u qadiitay ma ku dhigniba qado uga dhigteen waxaan idin sheegayaa halkan idinka cadeynaya cashuurta degmada ka soo baxda ee laga qaadaa boqolkiiba 25 ma 75% ka kale wuxuu ku maqan yahay dadka waliba ninku ka naaxsan yahay uu ku maqan waa ogtiina way idin ma doora qaarna waaba idin la qadeeyeen ka cabanaya cashuur waxaan idin sheegayaa berika maalin bay magacyo bixinayaan aanu de magaca halka la iimaa uma kala noqdee laakiin qaar baa idin qarsoon idin kadee qaar bay idin bixin doonaan anoo yar baa magac yar oo meelaad ka tiraahdaan la bixiyay laakiin waxa idin sheegayaa kuwa qarsoon inay idin bixin doonaan waxaan leeyahay shaqaalaha dawladda hoose waa wal experience haddaad si fiican ula shaqaysaan way idin la shaqaynayaan haddaad ula shaqayn weydaan way idinka shaqaynayaan aanu ma idin sheegay xogayo cusub baa kulay la joogay 6 bilood ugu dambeysay dakhligu kulay hoos buu nooga dhacay dakhligu hoos buu dhacay intii dambe iyo meeyarka xogeenkaygii ilaaye oo abtigay marba meeshuba qaraabo noqoto ina abtigay iyo xogayo ina abtigaya haddana waxa weeyde shaqadu haday uga maarmi weydo 3 walaalo ah waa la keenayaa 3 walaalo ah hadii looga maarmi waayo waa la keenayaa marka waxa weeyaan kulay raadadka aan tirinayo kaliya uun ma qayb ka ahayn runtii Xasan Yuusuf Riiraash qayb ka ahayn shaqada qabanay haddii cid ay jirto uma malaynayeen intii dambe xantaydaan ogaayo way u saamaxeen haddii ay jiraan ciidan sharciyada ku sii xagtay waa anu waa saamaxay laakiin midun baan idinka saamaxayn ku wareejinaya golaha cashuurtu cidii ay ku baaqatay liiskoodii uu hayaa in meeyirkan wareejiyo ka saamax malayadu